Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa jira qalab dadka laxaad kale u suurtagelinaya la qabsashada nolosha dabiiciga. Halkan waxaan igu soo bandhigaynaa 3 shay oo dadka indhaha la isticmaalaan. Ushani waa usha uu qofka indhaha la u isticmaalo keligii markuu socdo. Ushan waxay ka kooban tahay 3 qaybood. Qaybta sare oo ah qaybtu gacanta ku qabsanayo, qaybta dhexe oo ah ushii cadayd ee lagu garanayo qofka indhaha la ushiisa inay tahay, qaybta hoose oo ah qaybta dhulka taabanaysa. Qaybtaasi waxay ka kooban tahay madax wareegaya oo ka celinaya ushu inay dhulka ku hakato, dhulka khaasatan daldaloolaha leh ama dhagaxda leh. Ushan qofku markuuna isticmaalin wuxuu karayaa inuu laalaabo, uu yareeyo ama shandadu ku qaato ama meel uu dhigto. Maashinkan waa maashin lagu daabaco farta braille-ka ee dadka indhaha la ay akhriyaan. Maaha maashin elektarooniga ee waa maashin qofku bes warqad u baahan yahay. Qofka indhaha la wuxuu adeegsadaa maashinkan markuu guriga joogo inuu ku qorto waxyaabaha degdega ah sida nambarada telefoonada, ballamaha iyo xasuusaha. Tan magaceedu waa Braille Silent. Waxa lagu xiriiriyaa kombiyuutarka ama laptopka. Qofka indhaha la waxay u suurtagelisaa waxa shaashada ka muuqda inay ugu turjunto farta braille-ka ee dadka indhaha la ay faraha ku akhristaan. Sidoo kale waxaa lagu xiriirin karaa smartphone-nada oo shaashada smartphone-ka waxa ku qoran ay farta braille-ka ugu turjumi kartaa dadka indhaha la.